Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan ka bilaabeynaa section 5. Sectionkii ugu dambeeya ka bilaabeynaa. Waxaa leenahay Microsoft Word 2013. Waxaan ku qaadan doonaa objectiveskan meesha noogu muuqdo listigan. Marka dhammaan insha Allah meelada u qaadan doonaa. Waxaan ka bilaabeynaa cashirkeena u horeeya working with a views. Viewska si loogu shaqeeyo. Viewska marka waxaa waaye Word 2013 provides wuxuu bixiyaa several ways how badan in which you can view a document. Documentigaaga views ku samayn kartid. You can use waxaad isticmaali kartaa commands on the view tab of the ribbon. Amarada kuugu diyaarsan view tab ee ribbonka to switch to different views si ugu kala badbadashid views kala duwan. Change a document zoom level. Documentiga levelkiisa oo waxa ugu badashid. Split a document in a documentiga kala jabisid. Switch between open documents in documentiga midba midka kale ugu gudubto view documents side by side in documentiga midba midka kale fiirisid anmo iyo kuwa kale. Xalana marka switch views marka sameynaysid you can display soo bandhigi kartaa document each suited qayb kastana waxay ku habboon tahay specific purpose ujeedo gooni in loo isticmaalo. Tablekan ugu muuqdo hadda meesha wuxuu noo sheegayaa viewska markaas la isticmaali karo available-ka waxaa jira qayb la yiraahdo read more kuwaas waxaa loo isticmaalaa marka wax la aqrinayo kale. Print layout midka hadda noo saaran oo defaultiga oo wax lagu daawaco waayo. Web layout qaabka sida website-yada kale kugu soo bandhiga. Outline wuxuu kugu sameyn doonaa qodob-qodobeen. Drafts wuxuu kugu sameyn doonaa wuxuu kugu soo bandhigayaa sida tusaale simplified layout kugu sameynaya kuwaas marka si dhaqso leh aad kusoo gelin kartid qoraal iyo graphics sidaas lamid. Waxaa leenahay switch views marka sameynaysid view tab tagaysaa view group click a desired view button kadib waxaa leenahay click desired view button on the view tab on the view shortcut toolbar located taas ku yaalo on the right side of the status bar ee dhanka midigta status bar kaaga. sawirka meesha noogu muuqdo waa kana soo jeed. Waxaa leenahay changing a zoom level marka wax laga bedelayo you can zoom in to make a document easier to read or ama zoom out to see so aragti more of the documentiyada badan. Changing the zoom level marka wax laga bedelayo doesn't change waxa ka bedela document. It only affects waxay saameynaysaa kaliya how the document appears qaabka muuqanayo documentiga kaliya on the screen shashada. To change the zoom level si loo bedelo zoom levelka view tab galeena zoom group kadib waxaa leenahay click a zoom button ama waxaa sameyn kartaa click a zoom button on the right side ee dhanka midigta oo status bar. Waxaa leenahay marka zoom dialog box ku soo baxay and a zoom to select the desired zoom level and then click waxaa siisaa okay button. Waxaa leenahay marka sawirka meesha noogu muuqdo wuxuu noo sheegayaa zoom group qaabka uu u yaalo iyo zoom leveliska zoom out button zoom slider zoom button zoom in qaybahaas oo leeyahay. Marka mid kasto wuxuu noogu sheegay sawirkan magaciisa practicada oo arki doonaa. Split document window markii documentigaaga inaad kala jabiso aragtid waxaa leenahay split a document window on the view tab window group click waxaa split button a horizontal split bar appears in the document ayuu kaga soo muuqan doonaa window. Waxaa leenahay marka view multiple documents markaa sameynaysid to switch between open document on the view tab window group click waxaa switch button and then click waxaa siisaa documentiga aad rabtid inaad ku sameysay display. Note waxaa la check mark display wuxuu soo bandhigayaa to the list of the to the left of the document. Tusaale meeshaan sawirka noogu muuqdo waxaa noo furan hadeertaan saxda waxaa noo saaran document 2 haddii document 1 tigta saara ayadana sidoo kale document 1 u saarmi doonaa. Marka waxay ka dhigan tahay documentiga ii furan kee waaye marka document 2 hadhow ii furmaayo document 1 hadda tig saara asaga ii furmaayo markaas soo arki doonaa. To display two documents side by side on the view tab window group click waxaa siisaa view side by side button. Note waxaa leenahay
if only two documents are opened. haddii laba document uu furan yahay, then immediately appears wax kugu soo muuqan side by side. If more than two documents are opened furan yahay ayadana compare side by side dialog box opens kugu soo furan. So you can select waxaad oran kartaa the second document you want to display aragti inaad soo bandhigto. To display all open documents haddaa rabti inaad soo bandhigto waxaa leenahay on the view tab window group kadib waxaa leenahay arrange all button. Note waxaa leenahay when a multiple document are displayed on the screen you can activate a particular document. hal xabaa marka waxaa ka dhigi kartaa active by clicking adoo click siinaya it is window. You can also sidoo kale control individual windows ayaa control kartaa by clicking adoo siinaya minimize, maximize iyo close button mid ka rabtay in the upper right corner of each window. waxaa ka bilaabi doonaa cashirkeen xiga adding visual elements. practicada sameynayna waxaa imaadaa marka hore view tab kadib waxaa imaadaa views. documentigaana hadda qaabkaan u muuqdaa viewgana noogu muuqdaa. marka haddaa ka bedelo viewga oo ka dhigo read mode wuxuu isku bedeli doonaa sidaan read mode haddaa dhaho. haddii hadda aad soo laabto haddana read mode uu ka qaaday wuxuu noo saaray print layout oo midka hadda noo saaran ah. sidoo kale waxaa jira qayb la yiraahdo web layout asagana sidaan u muuqan doonaa. waxaa jirta qayb la yiraahdo outline sidaan noogu muuqan doonaa. waxaa kaloo jirta qayb la yiraahdo drafts ayadana qaabkan noogu muuqan doonaa. marka dhammaan inta hadda aan aragnay waxaa loo isticmaalaa documentigaaga qaabka viewgiisa oo noqon doono. qaybtan hoose ayadana sidaas lamida qaybihii hadda arkaynay oo lasoo koobay 3 kamida ah meesha noo saaran hadda web layout, print layout iyo waxaa noo saaran read mode. waxaa jira waxa la yiraahdo switch viewska marka print layout midka defaultiga nooga dhig. marka switch views sida loo sameeyaa switch waxaa laga wadaa documentiga hadda ii furan anoo ka dhex bixina waxaa rabaa documenti kale inaan furto. maxaan sameynaa marka switch views ama switch window waa isticmaali kartaa. waxaa leenahay view tab joogtaa waxaa soo furtaa qaybtan switch window kadib meesha hadda waxaa noo dooran test 2 marka waxaa waaye midka hadda noo kaxsan magaciisa waxaa ka arki kartaa title barka qaybtan kora fiiri ama test 1 haddaa rabo inaan soo kacsado waxaa dhihi karaa tigta saar. markaa tigta saartid wuxuu sameeyey test 1 oo iisoo saaray. haddaa view ku laabto oo dhaho test 2 ayadana wuxuu sameyn doonaa test 2 iisoo saari doonaa. qaabkaas waxaa sameyn kartaa in aad kala bedeshid. hadda waxaa ii furan test 2 haddaa rabo test 1 waxaa sameynaya tigta saaraya automatic uu iisoo bixi doonaa documentiga soo majeed. haddaa rabo marka inaad sameeyo test 2 inaad ku laabto waa ku dhufanaya automatic markasto documentiyada kuu furan aniga hadda laba xabisa iigu furan meeshaan. hadda inta imaado oo saan u saaro muuska wuxuu sameyn doonaa labada xabisa ii furan. 5 hadday yihiin wuxuu sameynaa inta inuu ka soo bandhigo inta xab ay yihiin. ciwaankana waxaa waaye changing zoom level sida wax loogu bedelaa. documentigaaga waa kana zoomkiisa inaad wax ka bedeshadaa rabtaa waxaa isticmaali kartaa qaybtan inaad imaadid zoom aa ku dhufatid kadibna cabirkaa rabtaa isticmaalada. haddii 200 aa dhaho muxuu sameyn doonaa sidaan ka dhigi doonaa 200. haddaa dhaho 100 ka dhig ama 75 wuxuu sameyn doonaa sidaan ka dhigi doonaa 75. waxaa kaloo sameyn kartaa option kale inta adoo isticmaalayo zoom sliderkan in aad sidaan marna soo dhaweysid marna sidaan usoo dhaweysid. wajida kawar marka mar haddii cabirka saxda ah uu kaa dhumo oo saan kaa noqdo waxaa isticmaalaysaa 100% oo kelig markaa siisid buttonkaas hal mar cabirka saxda ah kugu soo celinayo. marka qaabkaas zoomka waxaa u bedeli kartaa. calaamadahan pluska iyo minuska waa isticmaali kartaa. haddii minuska aa celiyo
gadaal u celinaa, pluskana hore u soo wadaa. marka markasto oo qaabka defaultiga noo fiican haddii aadan ujeed kale ka lahayn oo u isticmaalaysid sidaas oo loo isticmaalaa. waxaana ugu xigo split documentiga inaad kala jebisaa rabtaa. tusaale waxaa leenahay inta imaa paragraphkan, kadib waxaa leenahay view tab split markaa ku dhufto wuxuu sameeyey paragraphka qaybtan oo iga kala jebiyey documentiga. qaybtana waa gooni, tanna waa gooni. marka split documenti qaabkaas u isticmaali kartaa. remove hadaa rabo inaad ka qaado waxaan samayn karaa buttonka hadaa split ku qorneyd asaa remove isku bedelay, isaga la ku dhufanaya automatic wuxuu iga dhigayaa sidii caadiga ahayd. view multiple documents waxaa dhihi karnaa kii hadaa aad isticmaalin switch windows waxaa dhihi karnaa view multiple documentiga badan soo view garay hore usoo aragnay kuma laabanayno. waxaana u xigo display documents side by side documentiga inaa labada dhinac kasoo bandhigtid. waxaa imaanaynaa window group, kadib waxaa leenahay view side by side ku dhufo. kadib markaa ku dhufto wuxuu samayn doonaa documentiga kuu furnaa oo test 1 iyo midka kuu furnaa oo test 2 labadaba kuusoo bandhiga. marka view side by side ayaa lahaa. ka waran marka haddii uu kuu furnaan lahaa 3 documenti camal, waxaa dhihi lahayd arrange all, hadhow ayadana wuxuu samayn doonaa uu isku soo aruurin doonaa dhammaantood. marka sida caadiga midka rabtaa controli kartaa. kan hadda ku celiyo view side by side wuxuu samayn doonaa haddaa kan rabo gooni u isticmaali karaa, kan haddaa rabo gooni isticmaal. marka waxaa ku xukumo in marka midka aragtid klik siisid caadi gudihiisa klik markaa u siisid isticmaashid. hadda tusaale kan oo kale raaco sooma isticmaalaa minimize iyo maximize kiisa, kadib midkaana badbedelanaa. hadda view side by side waa kana, kan iyo kan waaye midkee rabaa marka inaan isticmaal. kana rabaa inaan isticmaal sooma, kan oo kale saasaa dhahan kartaa, bilaarsan kartaa ama sidiisa kusoo celin kartaa, waa yareyn kartaa. kadib markaa bilaarsato waxaa rabtaa ka badbedelanay, haddana sidiisa ku celinaysaa. waxaa leenahay restore. hay kii kale waa kana asna waxaa rabta ka badbedelo, sidiisa ku celi, maximize dheh, haddana restore dheh, isbedelkaa rabta ku sameey. micnaha waxaa lagu fududeeyey laba documenti hadaa rabta inaad isbarbar dhigto oo wax ka badbedesho, sidaas oga bedeli kartaa, qaabkaas u isticmaali kartaa. display document side by side qaabkaas uga faa'iideysan karnaa. cashirkeena xiga waxaa ka bilaabi doonaa adding visual elements insha Allah. waa mahadsantihiin.